magacaygu waxaa la yidhaha cabdiraxmaan rooble cabdullaahi waxaan ka mid ahay saxafiyiinta ka howlgala degmada Cadaado ee gobolkan Galgaduud 3 sano oo bila dhiman yihiin ayaan ku jiraa saxaafadda oo aan ka shaqeynayaa. magacayga oo saddexaan waa Raa'id Cali Ciise waxaan ka shaqeeyaa warbaahinta Dhambaal ee magaalada Cadaado sidoo kale waxaan ahay wakiil wareedka TV-ga Somali Cable ee magaalada Cadaado warbaahinta waxaan ku jiray muddo 4 sano ah. magacaygu waa Hashim Cumar Xasan waxaan ahaa wakiil wareedka TV-ga Shabeelle ee magaalada Cadaado minada saxaafadda ama waxa aan wariye ahay muddo 5 sano ah. magacaygu waa Sabriin Xasan Maxamed oo ka howlgasha Radio Cadaado waxaan ka ahaa madaxa shaqadii shaqaalaha sidoo kale waxaan warbaahinta soo galay dhexdhexaadkii ama horaantii 2019kii abtina waa ka shaqeeyaa sidoo kale waxaan ahaa reporterka oo Bulsho TV. magacaygu saddexaan waxa weeyaan Cabdullaahi Cabdinuur Cali idaacadan ka shaqeynayo waa idaacada Al-Ihsaan waxaan joogaa muddo 3 bilood 3 beri oo aad u qiimo badan oo aan dhihi karno dabcan 3 sano agteena waa ay u dhigantaa ayay ahayd waan kaga mahadcelinaynaa ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed SJS iyo taabagalayaasha NAD ayaguna fursadaas ayna siiyeen wariyaasha degmadana aysan heli karin waxyaabaha aan sida gaarka u xusi karo yaan dhihi karo maanta waxba iska ka bedelay waxna way kaaga kordheen waxaa ka mid ah habka tabinta wararka la xiriira tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha waxaan rajeynayaa in bilaha iyo toddobaadada soo socda laga dareemi doono warbixinada iyo wararka deegaankan haddii alla idmo aan ka soo saari doono. aniga ahaan 3 maalin waxay iga dhigneed 30 maalin oo xaqiiqdii ah tababaro kale waa ka qayb galay laakiin tababarkan kii iigu saameynta badnaayo aha waxyaabahan ka faa'iiday waxaa ka mid ah sida loo tabiyo wararka la xiriira xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale markasta inaad runta sheegtid oo erayga run aad markasta isticmaashid sida tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo gudbiyo iyo in dadka codkooda aan meesha gaarin aad codkooda kor u qaadid oo aad bulshada u gaarsidid si ay cadaalad u helaan dadka dhibanayaasha. tababarka ay noo qabatay ama noo qabteen ururka SJS oo uu horkacayo xogayaha ururkaas Cabdullaahi Axmed Muumin ee lagu baranayay tabinta habka xuquuqul aadanaha wax badan ayaan ka bartay aqoon badan ayaan ka dhaxlay heerar badan ayaan ka fahmay oo aan rajeynay inaan ku dhaqmi doono oo ugu horeyso haddii aan doonayo inaan tabiyo ama aan xog ka soo aruriyo qof dhibana aan tusaale yar ka soo qaaday qof la kufsado kala dumar ah inaan qofkaas sharaftiisa iyo irdigiisa iyo sumcadiisa aan ku xadgudbin magaciisa saxda aan isticmaalin wajigiisa aan isticmaalin door weyn aan ka qaato haddii jirdil qofkaas loogu daro kufsiga inaan soo bandhigo kana ballan qaado qofkaas una sheego marka horena waxaan ahay iyo meeshan ka socdo inaan u sheego si degan aan ula sheekeysanayo markaan ka dhaadhiciyo waxaan ahay iyo meeshan ka socdo una ballan qaado inaanan wajigiisana soo bandhigeen magaciisa saddexaadna soo bandhigeen kabacdi hadduu iga ogolaado aan ka qaado wareysigaas si aan qayb uga noqdo inuu cadaalad helo qofkaas. qodobada saa'idka ii soo jiita ama saxaafadda markaa soo galaya u soo galay waxay ahayd xuquuqda aadanaha in loo doodo waliba dhanka dumarka saa'id aan interest gareeya in laga hadlo xuquuqda dumarka waxay leeyihiin wixii ku qaldan wixii looga qaldan yahay sidoo kale xorriyadda saxaafadda oo casharadii aan soo barana ka mid ahayd iyo xorriyadda hadalka oo isbarbar socday sidoo kale inaad runta ka hadasho markasta oo aan noqotid qof runta ka hadlaya runta inaad ka hadashid oo casharada bilow ilaa dhamaad maalmihii aad nala joogteen aad nagu celcelinayseen inta badan saxaafadda Soomaaliya ama wariyaasha Soomaaliya inta badan ay target ka saareen runta ay ku qoraan ay ku dabaqaan maadaama ay wariye yihiin ra'yigooda marka talooyin badan iyo casharadii waxay ku saabsanayeen sidii ra'yiga loogu bedeli lahaa runta aadna u qaadatay doorka saxaafadda ku lahayd. wuxuu ii faa'iideeyay sida qofka bini'aadamka uu u helayo cadaaladda ka maqan sida lagu raadi karo waxyaabahan ka faa'iido xasuusan karo waxa weeyaan ummaddu inay u siman yihiin warbaahinta qofka ciddaasaa taageeraya in la dhahay dhammaan in loo dhan yahay warbaahinta waxa doontaa runtii tababarkan oo markaan soo galayay iyo imika wax badan iska bedelay haddii ahaan lahayd inaan bartay qodobo badan oo u dhigay dastuurkeena
oo ay ugu muhiimsaneed habka loo tabinayo arrimaha bini'aadanimada iyo weliba tacadiyada loo geysto dumarka. Runtii 3 maalmood oo lasoo dhaafay waxaa nooga faa'iideyseen ama macallimiintu ayna barayeen qodobo badan oo aan anigu dib u fiirin ka suxufi ahaan oo ama aan traininadii aan qaadanaynay ama intaan saxaafadda ku jirnay naga daxsoonaa uu dhigaya dastuurkeena. Waxyaabo aan xanaka xaq u leenahay baranay iyo waxyaabaha shuruucda saxaafadda u taalay naga xadidayaan. Waxaan baranay mas'uuliyadda naga saaran bulshadeena inaan wax u soo tabino. Sidoo kale waxaan baranay qaabka ugu habboon ee bulshadeena wax ugu soo gudbin karno. Runtii ani qodobka ugu weyn oo saameynta igu lahaa wuxuu ahaa oo aan bartay si fiican uga faa'iidaystay qaabka loo tabinayo arrimaha bini'aadanimada si gaara dumarka dhibaatooyinka loo geysto. soo jeedinteeda marka la dhaho dabcan wariyaasha waxaan u soo jeedinayaa waxay tahay in ay diiradda saaraan in ka badan inta ay barnaamijta iyo wararka kale ee ku saabsan siyaasadda iyo waxyaabaha kalena ay geliyaan inay ka hadlaan arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha. xuquuqda aadanuhu waa waajibaadna saaran inaan ilaalino xaqa qofka karaamada bini'aadamka, inaan ilaalino shuruucda waddankeena u taalla, tan dunida u taalla, tan Afrika u taalla iyo tan galbeedka East Africa ama geeska Afrika u taalla intaba waa waajibna saaran annaga inaan ku ilaalino dadka mas'uuliyadda qaaday xayndaabkaas ay ku jiraan in xuquuqdaas aysan ku xadgudbin wax tacadiyana aysan geysan annaga mas'uuliyad saarata. wariyaasha guud ahaan intii aragta ama maqasha waxaan kula dardaarmayaa inaan waqti gooniya iyo juhdi gooniya aan gelino inaan diiradda saarno in aan wararka la xiriira xuquuqda aadanaha aan waqti badan gelino in ka badan inta waxyaabaha kale waqti gelino. caqabado badan aan la kulanay gaar ahaan anigoo caqabado badan oo la xiriira dhanka kaamirada oo kaliya oo ragga xaggooda nooga yimaado. Marka ururka SJS-na waxay naga ballan qaadeen inay garab istaag noo sameyn doonaan, inaguna urur midaysan aan noqono, iyaguna wixii tabartooda ah ay nala garab taagan yihiin si aan urur u dhisano, inaguna caqabadana haysato aan uga gudubno. marka anta iska kaa soo qabsado adoo waajibaadkaadii gudanaya oo aan wax oo rabshada aada sameyn deegaanka dadka u adeegaya oo musuq markii laga cabto tabinaya oo markii halkaas gaari uu ku gubta ama ayadoo dabdamis magaalada yaalla aan loo gurman sheegaya ama markii dhibka weyn oo kala dhaca sheegaya adoo si saxda ah oo anshaxii saxaafadda iyo xeerarkeeda u soo maraya marka ani maamul aan ku qabsado ama anoo title sheegay aan ku qabsado waa maxaa ii sheega marka waa ku sii dhiiradaa wariyaashana garab aan ka helaa. caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta aniga qaasatan waxaan ka warrami karaa magaalada Cadaado. gabdhaha saxaafadda ku jira ee magaalada Cadaado caqabada ugu weyn oo haysta mar waxay tahay horta ayagoo saxaafadii rabo oo hami kale ay wixii haddana dad xishood badan xishoodkoodii ayagoo rabaan inay saxaafadii ka qayb qaataan ay sameeyaan ay fikirka ka dhex guuxay ay u soo galeen iyo muhiimadda ay leedahay inay dadka u hadlaan oo xuquuqdooda u doodaan runta warka ka sheegaan waxay arkaan ka hadlaan. haddana markii meelaha la isugu yimaado ama goobaha kulanka markii la isugu yimaado yihiin dad aad u xishood badan oo inay hadlaan ama dadka u imaada la hadlaan saaid ugu xishooneen. marka taasoo caqabada sidoo kaleeto dumarka gabdhaha saxaafadda ku jira ku nool magaalada Cadaado waxay haysaa qalab la'aan baahsan oo qof qalab leh oo Cadaado jooga ma jiro. marka caqabadahaas haysta wariyuhu inuu u shaqeeyo bulshada kan waxaysta iyo kan waxaysan. 2 ummaddu sinaan iyo cadaalad. 3 waxa uu baranayo ama la soo baray oo shaqadaan uu soo ku arag waxa kamid ah inuu hal xog kaliya raadin markuu wax goobayo 2 xog oo iswaafaqsan haday doonaan noqdaan inuu helo. caqabado badan ah haysto gabdhaha wariyaasha si gaar ah gabdhaha wariyaasha deegaanka Galmudug ka howlgala. caqabada ugu weyn oo gabdhaha haysta waxa weeyaan inaysan haysan qalab. caqabadaas oo dabcan ka hor istaagaysa inay sidii loo baahnaa gabdhaha waxay u soo tabiyaan ama uga soo dhex muuqdaan warbaahinta deegaanka. sidoo kale fursad gabdhuhu uma helaan inay tababaro loo diro ay xirfadooda ku horumariyaan. waxaa kaloo jirta gabdhuhu inta badan saxaafadda kama dhex muuqdaan. sabab waxaan u ahaa aniga u aaneynaa gabdhaha dadaalkoodana ma yara nimanka ama idhaahdee madaxweynta
oo madaxda warbaahinada kala duwan sababtoo ah fursadda ayakaa wariyaha u shaqeynaya siiya iyakaana ka hor istaaga marka taasaa dabcan caqabadahan haysta sabab iyada u ah kale wariyaasha waxaan kula daarmayaa in aqoontooda dhinacyada kala duwan ay dhisaan maadaama ay bulsho u adeegayaanna waxa ugu muhiimsan lagaga baahan yahay ay tahay aqoonteena inaan kobcino mar kasta aan gelino waqti in ka badan inta dadka kale ay geliyaan aqoontooda inay kobciyaan inaan aqoonteena kobcino maadaama waxaan u adeeganaa bulsho ama community intaa leeg ee aadka u tiraha badan uu yahay ee qofku waxa aad tibinayso uu ka dheehan karo heerka aqoontaadu ay gaarsiisan tahay sidoo kale wariyaasha waxaan ugu baaqayaa iyagana mar kale aan haddana ku dhiirigelinayaa inay midoobaan meel kastoo ay joogaan sidoo kale wariyaasha gobolkeena galmudug iyo gaar ahaan cadaadaba sidoo kale midnimo ayaan usoo jeedinayaa gabdhaha ugu horeyn waxaan leeyahay horta idinku marka hore dad midaysan noqda si aad horumar u gaartaan aad inta badan wiilasha saxafiyiinta waxaa lagu xantaa inay gabdhaha bidixeeyaan amba qaar ka mid ah baan anigu arkay si aad ragga uga wiilkan 9 bilood ku dhashay adna 9 bilood aad ku dhalatay waxba kuma dheer aqoonta uu leeyahay hod kala aad leedahay si aad uga maarantaan waa inaad aqoontiina kor u qaadaan tababarada ka qayb gashaan sidoo kale gabdhaha saxafiyiinta anoo wariyaasha dhan u jeedinayo wiilal iyo gabdho jooga gaar ahaan gabdhaha saxafiyiinta caadada jooga waxaan leeyahay waa inaad xubno ka noqotaan ururka SGS si aad xaquuqdiina u heshaan wariyaasha cadaado iyo deegaanada hoos yimaada si guudna galmudug oo dhan waxaan u soo jeedinayaa in hadafkooda ama targetkooda uu noqdo inay saxaafadda ama wararka ay tabinayaan run ka sheegaan qodobka labaad waxaan u soo jeedinayaa in ay dadka dhexdhexaad u noqdaan cadaalad dhexdhexaad aysan qolo gaar sheegin qodobka saddexaad aan u soo jeedinayaa waayo wax walba xaqiiqadooda inay ka war doonaan inaysan dhinac gaara aaminin labada dhinacna aaminin xog saddexaad inay heli karaan inay mararka qaar beri inta ka noqdaan wixii hadday isku qasmaanee xogaha ayagu ay soo heleen oo saxda iyo meesha ka heleenba ayagoo caddeynaya inay ku dadaalaan saas inay u tabiyaan warar dhammaan gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed kuwa galmudug gaar ahaan kuwa cadaado waxa kula talinaya si guud waxa kula talinaya inaysan hamigooda ama hamiga ay kala haayeen inay saxaafadda soo galaan iyo inaysan horta ka noqon markay saxaafadda soo galayaan hebel baa gal bari ka bax hadana soo gal inay ka ahaato dhab inay go'aankan sameeyaan sidii loogu talagalan u sheegaan ka run sheegaan xaquuqda aadanaha u doonaan si xoran ugu hadli karaan dadka laga tirada badan yahay iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayna sare u qaadaan aqoontooda because hadaad aqoon lahayn caqabado badan baa ku qabsan kara sidaa waxay tabinaysaa hadaysan toosnayn waxaan kula dardaarmayaa isku duubnaasho isku xirnaasho ilaa heerka ay gaartay maanta qoladana siiday ii sheeg SGS hay-adeeda iyo iyagoo dhan madaxdooda iyo macallimiinteenni qaabka ay noo bareen cilmiga annaguna in aan saas oo kale aan la wadaagna bulshada caalamka iyo kuwa markaasi galmudug quseeya si annaguna markaas aan u noqono farqi qur ah oo ummaddu meel ay hiigsata ay leedahay ay ka dhisan tahay warbaahin iyo ummad isgarab siida meesha inay ka dhisan tahay si gaara waxaan SGS ku boorinayaa inay dumarka xoogga saaraan sababtoo ah dumarku ragga way ka fursado yar yihiin way kaga baahi badan yihiin wayna ka dadaal badan yihiin markii la fiirsho haddana heerkii la rabay ma gaaraan sababaha waxaa keenaya dumarka aqoontooda oo yar marka SGS waxaan ku boorinayaa inay inta badan 100% ay xoogga siiso si u soo saar lahayd dumar Soomaaliyeed oo suxufiyiina oo dareemi kara dhibaatada ama habtabinta quruxda badan ee u baahan tahay bulshadeenu in loo soo gudbiyo